baro Bluetooth technology. HC06 waa casharkii 11aad waxaa idiin soo diyaariyay anigoo ah Engineer Cabdiwahaab Somtronics. Casharkan waxaan ku soo qaadan doonaa tusaale circuitka loo yaqaano HC06 ama modulekaas oo ku shaqeynayo Bluetooth. Moduleka waxaan ku xiri doonaa Arduino ayaan ku xiri doonaa board, marka program ayaan qori doonaa si uu u shaqeeyo Bluetooth modulekaas HC06. waxaan kaloo isticmaali doonaa Android application ah. Applicationka aan qoray waxaa loo yaqaanaa Relayda Daar oo Dami. waxa uu ku qoran yahay Android Java. halkaa waxaan ku haysanaa Bluetooth moduleka. Ujeedada applicationka waxay tahay si aan u controlno Bluetoothkaas anagoo isticmaalayno telefoonka Bluetoothka ku jiro iyadoo wireless isticmaali doono. marka waxaan sameyn karnaa waa daari karnaa waa dami karnaa nalkaas anagoo isticmaalayno applicationkaas. sida ujeedaan waan daaray waan damiyey waan daaray waan damiyey. casharka marka wuxuu ku saabsan yahay Bluetoothka sida uu shaqeeyo iyo sida circuitkaas aan u sameynay. insha Allah waxaan rajeynayaa inay ka faa'iideysataan. waxay radaan ku laabto taariikhda magaca la yiraahdo Bluetooth xagee ka timid. magaca waxa ay ka timid boqorka la dhihi jiray King Harald Grossman oo naanaastiisa loo yaqaanay Platent. waxa boqorka uu maamuli jiray wadamada Norwayga iyo Denmark loo yaqaano. wuxuu lahaan jiray ilig madow ayuu lahaan jiray. iligaas ayaa wuxuu u ekaan jiray sida blue oo kale. marka naanaastiisa ayaa waxa la dhihi jiray Platent. Platentna waa Danish markii loo bedelana waxay tahay Bluetooth. marka meeshaas ayay ka timid Bluetooth. marka boqorka waxa uu ku fiicnaa wadamadaas Norwayga iyo Danishka ayuu isku hayn jiray. Bluetooth marka muxuu yahay? Bluetooth waa technology isticmaalayo chipkaas oo ku jiro aalado badan oo ay ka mid yihiin PC-ga, printerka, headsetka aan isticmaalno ama telefoonka aan kula hadalno, ay ka mid yihiin speakerska, ay ka mid yihiin telefoonkeena sidiisoo kale. marka Bluetooth wuxuu awood siinayaa shayadan kala duwan, aaladahan kala duwan inay wada hadlaan oo communication yeeshaan. ayuu technologygaas ayay ku dhisan tahay. sidii boqorkii hore uu isugu keenayay wadamada Denmark iyo Norway oo isugu hayay ayuu Bluetooth wuxuu isku hayaa shayadaas kala duwan. marka waa technology wireless ah oo aan u baahnayn fiilo inaad ku isticmaasho. Bluetoothka muxuu kaga duwan yahay waxa loo yaqaano WAN iyo LAN. WAN waxay ka taagan tahay wide area network. LAN waxay ka taagan tahay local area network. WAN waxaa ka mid ah telefoonada simka noogu jiro oo distance dheer gaari karo. LAN wuxuu ka taagan yahay sida Wi-Fi oo kale ayaa waxaa la yiraahdaa local area network. Bluetoothka waxaa loo yaqaanaa PAN, personal area network. marka distance-ka uu gaari karo marka laba shay oo Bluetooth ay ku jiraan aad isticmaalayso wuxuu only gaari karaa ilaa 1 mitir ilaa 50 mitir kaliya ayaad labada shay ay wada hadli karaan distance-kaas. wixii meeshaas ka dheer ma wada hadli karaan. marka la socotaas. Bluetoothka wuxuu leeyahay frequency loogu talagalay oo uu isticmaalo. markaad fiiriso radio frequency spectrumka aad fiiriso waxaad arkaysaa Bluetoothka waxa uu ku jiraa frequency-giisa oo isticmaalo waxay tahay 2.45 gigahertz. wuxuuna la mid yahay Wi-Fi-ga ayuu isticmaalaa same frequency asaga iyo Wi-Fi-ga waxa loo yaqaano Zigbee-ga. Bluetoothka inta aadan isticmaalin waxaad u baahan tahay aaladaada inaad dejiso. marka hore waxaad u baahan tahay Bluetoothka inuu daaran yahay aaladaada. tan labaad waxaad u baahan tahay in uu u muuqdo ama ay arki karaan Bluetooth-yada kale oo ka agdhow in uu Bluetoothkaaga uu jiro ama uu nool yahay. tan u dambeysana waa in uu leeyahay magac. Bluetoothka aad isticmaalayso waa inuu magac leeyahay. masalan telefoonkan oo kale waxa leeyahay magac uu leeyahay. masalan waxa laga yaabaa inuu yahay Samsung Note 10 oo kale. telefoonkaaga waxa laga yaabaa Galaxy inuu yahay ama iPhone uu yahay. magac ayaa u sameynaysa si ay ku gartaan Bluetooth-yada kale oo aad rabto in aad isticmaasho. marka saddexdaas waa important inaad dejiso. sidee baad Bluetoothkaaga ama aaladaas aad ugu xiri kartaa Bluetooth kale? marka taa waxay u baahan tahay wax inay is afgaran karaan labada Bluetooth. marka waxaa la isticmaalaa wax la yiraahdo midda ugu horeysa waxay tahay discovery ayuu la gelayaa oo yacni Bluetoothka ka agdhow ayaa ku soo raadinayo ina aad jirto. sidii hore aan u soo sheego kale
bluetoothka waa inuu magac leeyahay, waa inuusa sheegaa uu yahay adresskiisa waxa uu yahay. marka tilaabada ugu horeysa uu qabanayo waxay tahay waxa la yidhahda discovery ama sahminta. tan labaadna wuxuu dhacaysa uu raadinaya oo waxa la yidhahda search ama raadi. tilaabada saddexaadna waa isfahmayaan oo waxa loo yaqaano pairing. mar hadday is afgartaan oo magacyada labadoodba ay gartaan inay ku wada hadli karaan same communication ama isku luqad ay ku wada hadli karaan, marka waxay sameynayaan waa isku dhagaayaan labadii shay. marka tan u dambeysana marka waxay noqonaysaa labadii shay waa isku xirmayaan oo waxaa la yidhahda connection ayaa dhacay. marka afartaas step ayay martaa bluetoothka aaladaha si ay communication ama isugu xirmaan. bluetooth-yada versiono ayay kala leeyihiin. versionka hadda aaladaada ay isticmaalayso ama versionka hadba ay isticmaalayso waa wax cadadan waaye. marka la soco versionka hadba aad haysato oo ku jiro aaladaada. versionka hadda u dambeeyo waxaa la yidhahdaa version 4, laakiin inta hadda badan waxaa la joogaa version 2 iyo version 3. marka depending waxay ku xiran tahay aaladaada quwadeeda. version 3 waa high speed oo yacni waa ka speedkiisa ama waa ka orod badan yahay versionkii ka horeey oo ahaa 2.0. tusaalaha oo aan kusoo tusi doono casharkan waxay tahay HC06 bluetooth module. waxaan isticmaali doonaa bluetooth modulekaas oo ku dhisan bluetooth chips. soo ujeedaan tusaalaha waa modulekaas. modulekaas wuxuu leeyahay 4 lugood ayuu leeyahay, gadaashiisana waxaa ku qoran sidii loo isticmaali lahaa. markaa fiiriso pictureka aad fiiriso moduleka 4 lugood, tablekana aan fiirino waxaan ogaanaynaa magacooda iyo sida ay u shaqeeyaan ama sharaxooda. VCC waa meesha quwadda uu ka qaato oo pluska ama meesha dabka uu ka qaato. groundna wuxuu noqonayaa sidoo kale meesha uu ka qaato dabka oo minuska sida baterigii plus iyo minuskii. TXD iyo RXD waxay kaliyihiin meesha isgaarsiinta uu kala socdo aaladaha kale. TXD waxay noqonaysaa meesha uu asaga isgaarsiinta uu ka diro ama serial out waxa loo yaqaano. RXD-na waxay noqonaysaa meesha isgaarsiinta uu ka qaato ama isgaarsiinta uu ka qaato oo la yidhahdo serial in. markii aad fiiriso lugaha, pinka hore waa VCC, pinka labaad waa ground, pinka saddexaadna waa TXD iyo RXD sida halkaan aad uga jeedaan pictureka. RXD iyo TXD voltageka ay isticmaalayso waa 3.3. sidaa la socotaan Arduino boardka waxay isticmaashaa 5 volts. marka waxaan u baahannahay voltagekaas inaan hoos u dhino. schematica ayaan idinku tusaya sida aad u dhimi lahayd voltagekaas. dabka uu ku shaqeeyana ama powerka wuxuu noqonayaa 3.6 ilaa 6. sidaa la socotaan Arduino waxay leedahay 5 volts, marka dabkaas waa uu ku filan yahay aaladda. sawirka aad u jeedaan waa circuitka aan u baahannahay inaan isticmaalno. Arduino boardka waxaan isticmaali doonaa pin 2 iyo pin 3 ayaa waxaan u isticmaali doonaa TXD iyo RXD. pin 2 waxa ayna ku xirmaysaa 2 resistor. labada resistor waxaa loo yaqaanaa voltage dividing circuit. sida hore idinku soo sheegay labada RXD-ga iyo TXD-ga 5 volts ma aad isticmaali kartid oo quwadda aad u baahan tahay wuxuu noqonayaa 3.3. si aan 3.3 aan u helno waxaan u baahannahay inaan isticmaalno 2 resistor oo loo yaqaano voltage dividing network. markaan isticmaalno labada resistor oo aan calculation aan sameyno waxaan arkaynaa meesha dhexda ah inay noqon doonto 3.3 volts. marka HC06 waa uu shaqeynayaa. sidoo kale TXD-ga waxaan ku xireynaa sidoo kale ama TX pinka waxaan ku xireynaa 2 resistor kaasoo u qaybinaya 5 voltska ka imaanayso pin 2 ama pin 3 ayuu wuxuu u qaybin doonaa voltage divider circuitka wuxuu u qaybin doonaa 3.3 volts ayuu ka dhigi doonaa. marka sidaa ayaan u dhisi doonaa circuitka. pin VCC-ga waxa uu ku xirmayaa Arduino 5 volts. Arduino 5 voltskiisana waa pinkaas. groundka sida calaamadda horta ka hor aan idinku soo sharxay oo ah groundka HC06na waxa uu ku xirmayaa groundka oo Arduino. marka sidaa ayuu u xirmayaa. markii aad powerka aad siiso
boardkaas ama HC06 powerka aad siiso kambaniga sameeyey modulekaas magaca uu baxshay wuxuu noqonayaa HC06 ayaad ku arki doontaa markii aad teleefonkaaga aad fiiriso passwordka uu u baahan yahay si aad ula hadashana wuxuu noqonayaa 123 haddana waxaan dhisaynaa circuitkan u baahannahay inaan ku xirno HC06 sidaa ujeedaan waxaan isticmaali doonaa socket 4 lugood leh si aan awood u yeesho HC06 boardkaas si marna aan u geliyo marna aan aga saaro marka waxaan isticmaali doonaa socket 4 lugood leh haddana sokorka ayaan ku alxamayaa sidaa ujeedaan sidaa ujeedaan socketka markaan dhameeyey waxaan u baahnahay hadda inaan ku rakibo resistorskaan idin sheegay oo circuitka aan markaan ka hadlayo oo ahaa TXD iyo RXD oo isticmaalayo 4 resistor oo loo yaqaano circuit dividing waxaan soo qaadan resistorka ugu horeeya waan cabiray wuxuu cabiray ilaa 1 kilo ohms ayuu cabiray marka asaga ayaan meesha geliyey labada lugood oo u baahnayeen TXD-ga iyo XD-ga ayaan ku xirayaa meesha ay hadda alxamay alxanka markaan dhameeyey waxaan u baahnahay inaan ka jarjaro lugaha dhaadheer si uusan short u keenin hadda waxaan soo qaatay pin 4 lugood leh taana waxaan u baahnay inuu ku rakimo Arduino sidaad tusi doono markaan dhameeyo afartaas pin laba keliyaan u baahnahay laakiin hadda inaan ku alxamo waaye si aan maaragtay Arduino ugu rakibo HC06 haddana waan alxamayaa 4 lugood waxaan kaloo ku rakibay connection kale oo aan ka qaadan doono power supply-ga si uu HC06 power uu u helo pin 1 iyo pin 2 iyo pin 3 waxa uu ku xirmayaa Arduino sida ujeedaan haddaad soo qaadato wuxuu gelayaa pin 2 iyo pin 3 waa meesha uu ka qaadanayo TXD iyo RXD waxaan kaloo ku xiray connector kale oo aan ka siin doono power supply-ga sida ujeedaan gadaal wuxuu ku leeyahay arrinta idin sheega oo ahaa voltage-ka iyo TXD iyo RXD meesha uu ka qaadan doono iyo VCC sidaas ayuu u gelayaa connectorka kale oo agtiisa ah oo labada pin ah wuxuu noqonayaa power supply-ga oo ka qaadanayo HC06 adiga markaad dhisanayso circuitkaaga sidaa rabtaa u isticmaali kartaa oo schematic sidaa idinku tusay sidaa rabtaa u isticmaali kartaa laakiin aniga waxaan isticmaalay circuit boardka si aan u fududeeyo hadhowdii markaan rabo inaan ka saaro HC06 resistor sidaa ujeedaan 4 resistor oo TXD-ga iyo RXD-ga ku xirmayana waa ujeedaan hadda waxaan u baahnay inaan powerka ku xiro pinka koowaad waxa uu noqonayaa powerkii pinka labaadna sidoo kale asna powerkii marka waxaan ku kala xiri doonaa 5 volts iyo groundkii oo lahaa Arduino lahaa ayaan ku xirayaa hadda sidaa ujeedaan groundka wuxuu noqonayaa pinka ugu horeeyo maadaama uu u baahan yahay power taa marka waxay ku xirmaysaa groundkii oo Arduino sida ujeedaan waxaan soo qaadanayaa fiilo kale oo yellow ah taas oo ku xirmayso pinka labaad oo aan u sameeyey inuu ka qaato HC06 powerka uu ka qaato marka taana waxay ku xirmaysaa 5 voltska oo Arduino sida ujeedaan marka powerkiina waa ku xirnay receive-kii iyo transmit-kii pin labada pinna waxaan ku xirnay pin 2 iyo pin 3 oo Arduino markaan powerka aan ku xirno sida ujeedaan
HC06 waa uu shaqaynayaa, waxaana ku ogaanaysaa LED-ga ayaa blink sameynaya ama daarmaya. mar haddaa intaas aad aragto waxaad ogaadaa circuitkaagi in uu shaqaynayo. marka hadda diyaar waxaan u nahay in aan program gareyno HC06. haddana si aan u isticmaalno bluetoothkaas tusaalahan waxaan soo qaadanayaa circuitkii hore oo aan ku soo qaadanay casharkii 10aad oo ahaa solid state ku saabsanaa oo aan ku tusnay inaan ku daari karno relayda null. marka circuitkii hore ayaan soo qaadanayaa. sidaa ujeedaan circuitkii hore wuxuu leeyahay solid state relaygii oo u baahan in laga control halkaas. fadlan casharkii 10aad fiirso. intana waxaan ku xirnay dabkii ka imaanayay bateriga, kaasna waa nalka aan daari doono. si aan u controlno relaydaas sida casharkii hore aan kusoo qaadanay waxaan sameynaynaa pluska oo relayda sidaan hore idinku soo tusay waxaan ku xirayaa pin 7 Arduino ayaan ku xirayaa si aan u controlo. minuskeedana waxaan ku xirayaa groundka halkaan ayaan ku xirayaa. marka pin 7 markii aan amar siino Arduino wuxuu sameyn doonaa wuxuu daari doonaa LED-gaas ayuu daari doonaa. haddana waxaan ku celinaynaa booskeedii pin HC06 ayaa waxaan ku rakibaynaa pin 2 iyo pin 3 meesha u baahnaa. haddana waxaan u baahannahay inaan program gareyno. ujeedada aan ka lahay tusaalahan waxay tahay markaan usoo diro amar aan siiyo LED-ga markaan amar siiyo HC06 aan amar aan siiyo LED-gaas waa uu noqonayaa waa uu istaagayaa. markaan amar siiyo wuxuu sameynayaa Arduino ayuu wuxuu leeyahay daar dami nalka. marka tusaalaheena taa ayuu ku saabsan yahay. waxaan isticmaali doonaa program aan qoray ayaan isticmaali doonaa. programkaas aan ugu magacaabay relayda daar ama dami. programka waxaa la yidhaahdaa relayda daar ama dami. marka insha allah taas ayaan idinku tusi doonaa. tallaabada ugu horeysa oo aan sameyn doono waxay tahay telefonkaaga waxaad tagtaa settingka waa hadduu Android yahay, waxaad tagtaa connectionka, waxaad tagtaa bluetooth. markaa bluetooth tagto marka ugu horeysa waxaan sameynaynaa inaan scan gareyno si aan u aragno HC06 inuu la hadlaayo telefonka. markaan ku xiro dabka ku xiro LED-ga waa blink gareeye. taasna wuxuu noo sheegayaa HC06 oo ujeedaan meeshaas ayuu ka soo baxay. marka hadda waxaan sameynayaa sidaan horey idinku soo sharxay waxa loo yaqaano pairing si ay labadooda telefonka iyo bluetoothkaas u wada hadlaan. sidaan iisoo sharxay wuxuu leeyahay sheeg passwordka. marka passwordkana sidaa idin soo sheegay waa 1 2 3 4. okay markaan dhahno sidaa ujeedaan is pairing labada waa wada hadlayaan communication ay sameeyeen connectionkay sameeyeen. sidaa ujeedaan HC06 waa uu ka soo baxay meesha. mar hadda inta aad hesho marka waxaan u baahnay inaan program gareyno bluetoothka si aan amar u siino uu u daarmo nalkaas. casharkan wuxuu la socdaa casharkii 10aad. marka softwarekii aan qornay oo casharkii 10aad oo aan ku controlaynay relayda solid stateka ayuu la socdaa. programkii keli hore ayaan isticmaalo oo waxaan ku daray waxyaalaha aan u baahnahay oo bluetoothka aan u baahnay si aan u program gareeyo. waxaan ku daray serial library. waxaan u sheegay serial library inaan isticmaali doono HC06 pin 2 iyo pin 3 oo ah labada pin oo receive iyo transmit ka ahaa RxD iyo TxD. casharkii hore sidaan usoo sheegay waa meesha aan ku controlayno relayda waxaan ku magacaabay relayda pinka oo ah pin 7. qaybta setupka sida hore idinku soo sheegay labadaas isma bedelin oo waxaan u sheegayaa serial monitorka inaan casharka uu yahay Somtronics casharkii 11aad. pinka sida casharkii hore relayda waa output oo waa pin 7 waxaan u isticmaalaynaa output. tan kaliya aan ku daray waxay tahay HC06
inuu isticmaali doono serial speedka ah 9600 bits per second or baud rate waxa loo yaqaano. marka HC06 wuxuu isticmaali doonaa pin 2 iyo pin 3 waxay isticmaali doonaan 9600. loopka meesha programka uu ka bilaabanayo sida hore idinku soo sheegay, tan ugu horeysa aan u sheegayo Arduino aan warsanayo waxay tahay HC06 ma yahay available oo ma soo diraya wax ma ii soo diray weli, oo macnaha daatada uu soo dirayo ma ka badan tahay eber. hadday eber ka badan tahay macnaheedu waxay tahay data information ayaan ka helnay bluetoothka HC06. marka waxaan u baahnahay inaan akhriyo. marka ugu horeeya waxay tahay waxaan isticmaalayaa char oo ah sida la socotaan 8 bits. waxaan isticmaalayaa datada ka imaanayso ka akhri wuxuu soo diray bluetoothka telefonka appkiisa. appka wuxuu soo diray ayaan ka akhrinaynaa. datada uu soo diray ayaan waxaan isticmaalaynaa switch data wax la yiraahdo, oo ah inaan maadaama uu appka uu soo diri doono 1 iyo 0. 1 markuu soo diro case koowaad 1 uu soo diro, waxaan rabnaa relayda in ay high noqoto oo ay daarmato. markay daarmatana waxaan print gareyn doonaa serialka inay daarantay. tan kalena waxaan ku qori doonaa appka, waxaan u diri doonaa inay relayda ay daarmatay. marka appkaan ku qori doonaa waana idin tusi doonaa. marka taa waa kiiska hore waay, qaybtii hore. hadduu appka soo diro 0 uu noo soo diro oo bluetoothkiisa uu 0 noo soo diro, sidoo kale waxa kaliya aan ku duwan tahay waxay tahay relayda pinkeeda low ayaan ka dhigaynaa. marka waxaan leenahay relaydi way dantay. tan kalena waxaan leenahay relaydi way danto ayaa waxaan u diri doonaa telefonka. marka intaas labadaas case ayay noqonaysaa, labadaas marxaladood ayay noqon kartaa, ama 0 soo diri karaa ama 1 soo diri karaa ama 0. marka labadaas baan sameynaynaa. waxaan kaloo ku daray delay ah ilaa 50 millisecond ah si markii aan akhrinayo uu ii siiyo awood aan ku akhriyo. waxaan rabnaa programka hadda inaan save garaysano maadaama aan dhamaystirnay. tan ugu horeysan sameynayno waxay tahay sida hore idinku soo sharxay compile. programkan check garaynaya inuu sax yahay, wax qalada ma leh sida ujeedaan. tan kale marka waxaan sameynaynaa upload, waxaan u diraynaa Arduino u dirina. markaan dhahno upload ama aan u dirno sida ujeedaan Arduino waa uu qaatay programka oo wax qalad ah ma leh. marka waxaan u baahanahay marka in aan la hadalno bluetoothkaas oo la hadlo bluetoothka. sida ujeedaan markaan appkayga aan daaray oo aan ku magacaabay relayda daar dummy app, wuxuu ii sheegayaa bearer device, macnaha inta device oo ku xiran ayuu itusaya. marka sida ujeedaan HC06 halkaa ayuu ku jiraa, oo yacni wuxuu ku jiraa liiska maadaama hadday aan isku xirnin labadooda. haddaan riixo halkaa wuxuu itusayaa inuu raadinayo bluetoothka. sida ujeedeen LED-ga halkaas markii hore waa uu daarmayo waa uu damay, hadda wuxuu noqday mid daaran keliya, oo yacni LED-ga waa daaran yahay. taana marka waxay noo sheegaysaa bluetoothka telefonka ku jiro iyo bluetoothka HC06 inay connection leeyihiin oo ay hadeertaan midkaa uu dhageysanayo. systemka sida uu u shaqeeya hadda ka hor sida uu soo sheegay, systemku wuxuu leeyahay ninka madaxda ah masterka iyo slaveka iyo kii la maamulay. kan waa kii wax maamulay, kanna waa kii la maamulay. markan waa uu dhageysanaya, wuxuu dhageysanayaa waxa uu soo diro bluetoothkan. appkan sida hore idinku soo sheegay wuxuu u dirayaa 1 iyo 0, 1 and 0 ayuu diraa. markaan switchka aan daaro halkaa wuxuu u dirayaa 1. 1ka marka amar sida casharka idinku soo sharxay, 1ka markuu helo wuxuu daarayaa relayda ayuu daaraya oo high ka dhigaya. tan kale aan sameynayna waxay tahay serial monitor aan soo dejinaynaa. sida ujeedaan serial monitorkii wuxuu na tusay casharkii Somtronics ahaa. marka wuuna dhegeysanaya. markaan daaro sida ujeedaan nalkii waa uu daarmay. halka waxa uu leeyahay relaydi way daarantay. Arduino-na wuxuu leeyahay relaydi way daarantay. marka labadoodii waa is dhegeysanaya. kana wuxuu ii sheegayaa Arduino wuxuu ii sheegayaa in relaydi uu daaray,
kana wuxuu ii sheegay inuu amar siiyo uu yiri relayda daar haddaan damiyo sidoo kale halkan wuxuu leeyahay relaydi way dantay kana wuxuu leeyahay relaydi way dantay marka labadooda waa wada shaqaynayaan saas ayaa loo isticmaalaa bluetooth-ka u isticmaali kartaa marka insha Allah waxaan rajaynayaa inaad ka faa'iidaysateen programka hoos ayaan ku soo dejin doonaa insha Allah 10 tobanaadna fiirsada maca salaama